nin dhalashadiisu ay tahay dalka Jaad oo lagu magacaabo Yuusuf Cabdullaahi Aadan ayaa la sheegay inuu yahay shakhsiga u sameeyay sixirka arbacadlaha ah oo ay isticmaalaan madaxweyne Farmaajo iyo afadiisa Zeynab Cabdi Mucaalim. sida la sheegay waxaa Farmaajo iyo Yuusuf Cabdullaahi ay isku arkeen magaalada Abu Dhabi waxaana u keenay dalaalka Yuusuf Cabdullaahi ayaa sidoo kale u sixiroole madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashir iyo madax badan oo ka tirsan qaaradda Afrika. waxaa arrintan wakiil uga ah madaxtooyada nin la dhashay marwada madaxweynaha kaasoo loogu dhiibo lacagta uu qaato. shabakadda Sirta Media oo heshay sawirka Yuusuf iyo nuqulka baasaboorkiisa ayaa waxa uu lacag joogto ah ka qaataa madaxtooyada waana shakhsiga ka dambeeya in la qala neefaf xoolo ah oo inta badan lagu arko magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale neefaf la gowracay la soo dhigi jiray magaalada Khartoum ee dalka Suudaan waana astaanta lagu gartay sixirka Yuusuf Cabdullaahi. dhinaca kale waxaa haweenadii u dambeysay ka socday magaalada Kismaayo waan laga dhaxwaday qaar kamid ah musharaxiintii hore ee doorashada Jubbaland oo ku jira Cabdinaasir Seraar. inkastoo aysan labada mas'uul weli kulmin haddana waxaa wada kulamada nabadeynta qaar kamid ah ganacsatada waxgaradka iyo oday dhaqameedka reer Jubbaland kuwaasoo dhammaantooda ka shaqeynaya in aan dhiig Soomaaliyeed oo kale ku daadan Jubbaland wixii isfaham la'aan ahna lagu xaliyo wada hadal. waxaa dhawaan la filayaa in ay kulmaan mudane Cabdinaasir Seraar iyo madaxweyne Axmed Madoobe si ay labada dhinac isugu soo dhawaadaan xalna loogu helo xaaladda ka taagan maamulka Jubbaland. dhinaca kale afartii isbuuc ee lasoo dhaafay waxaa jira warar sheegaya in Mukhtaar Robow ay la soo diristay xaalad caafimaad taasoo keentay in dhowr mar dhakhaatiir Turki ah loogu geeyo xabsigii uu ku jiray halka ilaa hal mar si qarsoodi ah loogu geeyay isbitaal Digfaar. lama oga nooca xanuunka haya laakiin waxaa jira warar sheegaya in ay ku adkaanaysay in uu ku sii jiro xabsiga ku dhex yaal hay'adda nabad sugidda ee uu ku jiray in ka badan 8 bilood. waxaa soo baxay warar sheegaya in ugu dambeyn madaxweyne Farmaajo ogolaaday in loo wareejiyo xabsi guri iyada oo ay gacanta ku hayn doonto hay'adda nabad sugidda. Mukhtaar Robow ayaa la dejiyay guri ku yaala madaxtooyada gadaasheed halkaas oo habeenkii xalay ahaa uu ku hoyday. isla xalay waxaa loo fasaxay inuu qaabili karo ehladiisa waxaana sidoo kale uu heli doonaa xorriyad u sahli doonta dhaqdhaqaaqiisa gaarka ah iyo adeegyada uu u baahan yahay. dhanka kale kooxda Al-Shabaab ayaa aad u raadinaysa Mukhtaar Robow iyaga oo doonaya in ay dilaan. dowladda Soomaaliya weli kama hadlin wareejinta Mukhtaar Robow loo wareejiyay xabsi guri. dhinaca kale afar xisbi siyaasadeed oo kamid ah xisbiyada isdiiwaangelisay oo ay hogaamiyaan siyaasiyiin kala duwan ayaa qoraal ay soo saareen walaac kaga muujiyay xaaladda siyaasadeed iyo xasarad amni oo ay sheegeen in ay ka alooshan tahay deegaanada Galmudug taasoo ka dhalatay ciidamo xad dhaaf ah oo dowladda federaalka u daabulayso magaalada Dhuusamareeb. xisbiyada wadajir Ilees Horusocod Qaran iyo xisbiga Nabadda ayaa war saxaafadeed ay soo saareen kaga hadlay arrimaha amni darre ay keeni karta ciidamada lagu daabulayo Dhuusamareeb ayna fursad u noqon karto kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab iyagoo xusay in Dhuusamareeb ay ka mid tahay deegaanada ugu nabdoon. xisbiyada ayaa ku baaqay in la fuliyo heshiisyadii dhexmaray dowladda federaalka iyo ahlu sunna si loo dhameystiro dhismaha maamulka Galmudug loo dhan yahay si shirka dib u heshiisiinta u miro dhalo lagana warsugo shirka Hobyo. hadalka xisbiyada ka soo baxay ayaa ku soo aadaya iyadoo ay xaaladda siyaasadda deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ay kasii darayso taas oo laga baqayo in ay keento dagaal iska hor imaada. asxaabta ku xiran channelka Calanka Soomaaliya waxaan ku wargelinaynaa in channelkeena Calanka Soomaaliya ay cilad yar soo food saartay sidaas darteedna aan si kumeel gaar ah wararkii iyo xogii qarsoonaa aan ugu wareejinay channelkan cusub ee Sirta Media. ha ilaawin hana ka maqnaanin channelka Sirta Media ku xirnow la noqo saaxiib joogto ah si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay weliba xogaha qarsoon ee xanta ah